السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل كسود هذا برنامج كني دير جنتها هدي الدونيس وإنه ألسي جوكتها كوسي شيء ذا أدعش هاي أدينا جوكتي سميت أعماش وألج عليها هاي هدي أتشيغنا يسو إن أتكمت هاي كوة كم جنجل النار دوينا ينا جنو سيدا درتيدا sidaa darteeda u halgan waxaad raadinayso hana noqonin qof ay hor kacdo jacaylka adduunyadiisa haddii uu qofku calafkiisa la tusin lahaa wuxuu dooran lahaa midka uu alle u dooray haddii uu qof salaan kaaga keeno qof kale waa inaad u jawaab celisaa aadna dhahdaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh taas oo macnaheedu tahay nabadgelyo korkaaga iyo korkiisa alle ha yeelo qofkii diida xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu qarka u saaran yahay inuu halaagsamo muusikada ama heesaha waxay sababaan in munaafiqnimo ay ku dhalato ama ay korto qalbiga ka tigtoonow inaad hormariso aragti taasoo aadan ka maqlin wax culimo ah imaamu abu daa'uud al-sijistaani wuxuu yidhi bal weligiisa iskuma lifaaqeen shayada adduunka yaala taasoo dadka ay nafsadooda ku dhex lifaaqeen laakiin marka aqoonta la sheego wuu hadli jiray almaymuuni wuxuu yidhi imaam axmed bin xambal wuxuu igu yidhi abuu xasanow haddii aad aragto qof xumaan ka sheegaya saxaabada ama asxaabtiisa ka shaki muslimnimadiisa waxaan ka tegay isku dayitaanka raaligelinta dadka wakhtigaas kadibna waxaan helay tamar u baahnayd inaan runta kaga hadlo dhammaan aqoonteena waxay ka bilaabmataa dareemayaasha waxaa sii raaca kadib fahamka waxayna ku dhammaataa sabab ma jiro wax ka sareeya sabab annagu taajir kuma nihin waxaan haysanno laakiin waxa aan taajir ku nahay waxa aan qaban karno la'aanta waxa aan haysanno shuruucda farxadda waa shay la qabto qof la jeclaado iyo shay la rajeeyaba qofka ka dhiga nafsadiisa sida tarxi oo kale kama cawan karo haddii ay dadku ku istaagaan halka quruxda ay xadidan tahay saraynta ama weynaanta waa xadidad la'aan sidaa darteeda maskaxda markay xaadir ku tahay weynaanta waxay isku daydaa inay qiyaasto waxaysan kari karin xanuun ku leh guuldarada laakiin farxad keenta ka baaraandegidda baaxadda weynta isku dayga